بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan kusoo jirnay barashada software-ka Autodesk AutoCAD. waxaan kusoo jirnay chapter-kii dimension. waxaan soo gaarnay cashirkiisii afraad. cashirkan waxaan ooga hadli doonaa insha Allah ta'ala own dimension style, how to create your own dimension style. Dimension adiga ku khaas ah ee aan ahayn kii standard-ka ah ee ku jira computer-ka sidee baa loo sameystaa ayaynu eegayna insha Allah. waxaynu hadda mar walba aynu ka shaqeyn jirnay ama aynu fiirin jirnay home tab wali tabs kale ma aan fiirin bal aynu fiirino annotate markaad ku dhufato waxa inta kugu sameysan ama ku jiro dimension group yani intaanba waxay ka hadlayaan dimension qaybtan waa text group qaybtan waa dimension group leader group saas u socota marka inagu kan ayaa naga quseeyo aynu eegno markaas aan hore ugu socono iligaas yarka hadda ku dhufato waxa ku soo baxayo dimension dialog box halka laga modify gareeyo ama wax laga bedelo dimensionka darsi ku horeeyay oo ku soo aragnay inta weeyaan waxa kale oo sameyn kartaa xalana waan tilmaamay darsi kan ku horeeyay press D then enter D ma fahant marka waa kala halka markaynu ayno inta waxa ku jira annotate iyo standard labaas baad ku jiro annotate iyo standard ma fahant marka sidee baan ugu darnaa our own dimension style inta imo new ku dhufo then magac u bixi waxa dhahdaa own dimension style ma fahant waxba kale inta ka bedelin standard uu ku yahay just continue side dialog box-ka ayaa ku soo baxayo waana halkii darsiga ku horeeyay aan ku sharaxnay oo looga bedelo dhammaan qaybaha muhiimka ah ama optionada muhiimka ah ee dimension aad ka helaysid haddaba own dimension waxaan u baahanahay inaan line-kayga u sameeyo midab مثلا jaalan ka rabaa inuu noqdo dimension line-kayga labadan sidaan igu daa dimension type iyo line weight-ka sidiisa igu daa okay halkan daan imaado extension line ma u baahniba madii aan u baahnayn labadan ayaan jeega saaraya AutoCAD-ka versionadiisa way kala duwan yihiin hadda aan version-kan isticmaalayo extension line-ka ama projection line-ka ee line-ka u dhaxeeya dimension-ka iyo object-iga inta ma ka saarayo meesha external line 1 iyo external line 2 baan jeega saaraya mararka qaar waxay noqon kartaa opposite software-ada qaar yaani waxa kala ah version-ada qaar mararka qaar inta ay ku marna jeega saareen marna ka qaadeen ma fahanta waxa way waa fixed length extension line muujadido marka la kaani version-ka aan isticmaalayo inta waxa saaraysaa labada jeeg dan way ka qaadmayaan haddaba ani waxa u baahan marka mu baahan projection line-kaas ama extension line-kaas mu baahan okay inta imo arrow madaxa waxa u baahan noocaas dodda ah kii hore ma raba xogaa waliba ii yara weyne 0.2 iga dhigso si fiican loogu arko okay textiga imo text marka imaado text style ma rabo standard-ka iga bedel مثلا waxaan u baahanahay ilaahay afku ma qabto Times New Roman baa mar rabaaba levant kaas ayaan u baahanahay okay font style na waxaan u baahanahay bold iga dhig Italian ka dhigan kartaa yes marka bold iga dhig okay apply it then close ka dhamidaas okay fit down wax kale ma ku bedelo intaan kale waa iska caadi waaye three significant figure ka sahayaado ma 2 ka dhig okay marka intaan oo dhan marka aad click siiso ha iloobin marka hadda dimension-kayga dhammaan waa soo sad gareystay wixii aan rabno ka soo wada bedelay laakiin kuma shaqeynayo ilaa aad dhahdo set current taa marka ha iloobin don't forget set current markii aan dhaho hadda ayuu marka dimension-kii xal iska bedelayaa ama standard-ka iska bedelayaa ma fahanti marka standard-ka waa ma noqon doono aynu eegna marka kii aan sameeyay ayuu noqon doonaa insha Allah waka madaxiisaas u kaya ujeeda malahan extension line-ki malahan textiga wakaasa soo jeedid hadii مثلا aan ku tuso dimension-ki standard-ka ahaa waxa soo dhalmaa waa kana standard-ka uu ka duwan yahay egg wakaasa dimension-ki standard-ka ahaa
extension line ولا arrow head كانوا عصواي لكن متكاس أنا سميست سمجد متكاس أنا جا أيا سميستي waxaad ku dari kartaa mid kale liide halka marka new seed meeshaas magacaada u bixi shaati cadaba iga dhig okay continue seed marka continue inta marka line bedel ya symbols ka bedel arrow wasdaaratid noocaas ka dhig text style kaas saart ku bedelo color waxa siisaa noocaasa mujda line kana color asagana waxa siisaa xoogaa noocaasa soo ma jeedid marka wakaasa saas marka ugu soo wada bedesho okay dheh marka okay laad inta marka waxa la set marka aan set gareeyo aan eegna marka waa ka dimension kala sameeyay oo magacayga aan la baxay you see waka marka sida aad rabto ayaad u sameyn kartaa haddii marka waxa muhiim ah hadaad rabto inaad delete gareysid inta imow waa kuwana waxa sameeyo dhan inta ay kaaga muuqanayaan waxay kale ka muuqan karaan halkaas halkaan ay ku dimension markasta active ku ah halkaan ku soo qormay hada shaati cada ay muuqato waan ku dhufan karaa waa kuwan inta soo sameeyay taa standard ka rabo waa ka standard siisa ka muuqanayo hada u baahanahay ki on dimension waa ka on dimension hada u baahanahay shaati cada waa ku laaban karaa waa ka hadda marka dimension ka inta kaaga muuqdo ayaa active ah oo ay ku shaqeynayo taasina waa qodob muhiim ah haddii aan u baahanahay marka inaad delete gareeyo maxaa sameynayaa daadarta inaad delete gareysid inta imow waxaad ogaataa ma delete gareyn kartid dimension active ah ee kaad ku shaqeynaysa ah ama dimension aad ku shaqeysay oo waxa weeye yaallo maxaa loo jiray مثلا cabiradiisi baa dhinac مثلا hada objectigan inta waxaa noogu samaysan kan intana waxaa ku shaqeynay kan inta saddex xabo kala duwan hada saddexduba mid kaan baan ka soo bilaabaya kaas baa active dhahaya kan marka aan active aan ka dhigaya kan aan active aan ka dhahaya ma delete gareyn kartid haddii uu ku shaqeynayo midkan markaas active uu yahay ama qayb kamid ah ku shaqeysay haddaba aan eegna marka مثلا standard iga dhig kadib set current dheh hadda marka waxbaa delete gareyn karaa okay tusaalaan fiiriya aan ku laabto kaas aan isku dayo inaan delete gareeyo muxuu ku yidhi the dimension style shaati cadda cannot be deleted soo ma jeedid okay ayaa ma delete gareyn kara sababtoo waan ku shaqeeyay okay hayad dira aan ku laabto balance ku day inaan kaas sagana delete gareeyo fahmaysaa kana asagana ma tuuri karo soo ma jeedid sababtoo ah waan ku shaqeeyo waa kana qayb kamid ah iyaalo fahmaysaa marka hal mar aan sameeyo dimension dheh okay ayagii aan to inta ka tuur markaas waa tuuri kartaa delete inta ka dheh inta markaad ka delete gareyso yacni shaqo aad ku qabatay kama muuqata halkaan hadda مثلا haddii aan dhaho marka waa kana hadda waan tuuri karaa eeg waa kasaa u baxaya are you sure you want to delete our dimension still yes alayda marka waa ka meesha waa ka baxay shaati caddana waa tuuraha kan laakiin ma tuuri karaysid shaati caddana tuur you see are you sure you want to delete shaati cadde so you say yes hadda marka waa iga baxeen labadii aan sameeyayba soo ma jeedid يعني مرك وحنا delete gareyn karin hada standard ma tuuri karo hada dabcan delete inaan dhaho waa kana the standard style muxuu ku yidhi dimension style standard cannot be deleted you see waxa way waa kana dimension style that are current or used in the current drawing cannot be deleted ma tuuri kartid dimension aad soo isticmaashay dimension lines kiisa object uu ka dul muuqdo ama mid markaas active ka ah waxaan filayaa inaad fahamteen intaas ayaan ku soo afmeerayaa darsigeena hope you understand this section see you next section inshallah assalamu alaykum